waxaan rabay kelmad yar inaan ka idhaahdo haddii wadajirka iyo siyaasadda aan heshiis lagu ahayn bay-ana wax lagama qaban karo amnina waxba lagama qaban karo horumarka iyo geedi socodka waddan uu leeyahayna wax badan baa ka halaabay Soomaaliya burbur badan baa ku yimid oo siyaasadeed oo dhaqaale oo caqliga xataa taabanaya oo maanta carruurtanadu ayna garanaynin xataa qaar badan oo ka mid ama dhaqan dawlad kale oo qaxay buu kula imanaya ama dawladnimada wuxuu u yaqaanaa ugaaska reerkooda iyo qoyskan iyo inta uu ka garanayo aad bay u yartay dhalinyaradiina hadda yararka ugu badan waxaa lagu soo jiray xilli bal in dawladnimo Soomaaliyeed la aduudo oo la isu keeno oo la isku dayo bal in wax walba si tartiib loo sameeyo markuu vacuum ama firaaq meesha ka soo baxo waxaa yimaada cadow badan oo isaguna siyaalo badan uga faa'iideysanaya ama ururada xajir ha noqdeen oo shabaab iyo daacish iyo wax la mid ah ha noqdeen ama kuwo qashin wada oo qashin daadinaya ha noqdeen ama ha noqdeen whatever intaasoo cid baa qof waliba meeshii dawladnimo mar haddayna ka jirin qof waliba wuxuu rabo ka samaynaya qof waliba sida uu rabo iyo waxa uu rabo iyo dantu leeyahay uu ka geysanaya sababta waa meel aan cid lahayn lama laha taas marka waxay u baahan tahay haddii aan dawladnimadii shalay la soo abuuray siday tahay aan loo wadin waxa aan ku heshiinay ayna soconin waxaa ka imanaya wax badan oo caqabadaha ama cilada ama siyaasad xumo Jubbaland waxaa la aasaasay 2013 inay dhisanto caqabad badan baanu kala kulannay iyadoo markaa igad iyo guddiyo technical iyo ururo badan oo jiray ay gacanta ku wada hayeen dawladdii xilligaa jirtay waxay gaadhay in culays badani ka yimaado in la dhiso oo systemka federaalka isagoo markaa Somaliland ay ahayd system gooni u taagan Puntlandna markaa la dhisay oo federal member state iyadoo ah ay ahayd meeshii ugu horeysay la dhisay Jubbaland inay noqotay meeshii ugu horeysay markaa la isku dayo odayaal badan iyo erge badan iyo dadkii deegaanka oo dhan from meesha ugu dambaysa gobolka Gada iyo ilaa iyo xeebta ugu dambaysa la isu wada yimid dadkuna ay go'aansadeen inay maamul dhistaan dawladdii xilligaa jirtay caqabad badan baa lagala kulmay waad ogeydeen dagaalkii ciidankii wada socday ee shabaabka la soo dagaalamay dhexdooda laga riday dhowr boqol oo qof baa ku dhimatay barakac baa ku yimid dhib baa ka dhacay taasaa markaa waxay gaadhay in dib Addis Ababa agreement loo galo oo 2 sano oo ku meel gaadhay iyo wixii lagu heshiiyay Addis Ababa agreement hadda dib ugu noqon maayo deegaankani wuu ka duwan yahay deegaanada kale oo dhan markii la isku daro sababtoo ah deegaanada kale inta badan dadka degan ama deegaanku siduu yahay way ka urursan yihiin laakiin kan waa deegaan qof waloo Soomaali maanta uu soo fiirinayo sheeganayo Soomaali ay ku wada nooshay maanta odayaashaas dhaqankiiyo kulli haddaan fiirin aad garanaysaan oday waliba maanta qabiilku ka hadlaya wuxuu yahay sidoo sidaa daraaddeed isku wadistooda iyo hayntooda iyo in la gaadho bal transitionkeeda iyo isbedelka ku imanaya iyo waxa dhacaya inay gaadho waa wax ka duwan kuwa kale ee ama dumaasha lagu kala qaato ama dhaxaltooyada ee 2 jufo ama 3 jufo ay wax ka dhaxayso isku mid ah ay gaadhayso waxaan aad ugu odaynayay ana oday Soomaaliyada marxab inaan bal isku dayno legacy-gan ka tagaynaa inuu noqdo gobolkaana dabadana inuu la fidmoobin ay noqoto gobol degan istiqraar leh sii jiri kara socon kara dadka Soomaalida ku wada nool ay si walaalnimo ku wada noolaanayaan ay magaaladan hadda waxay soo martay iyo dhibkay soo martay cidna looga warramayo qof waliba xogaan bukay shirkaas aad baan ugu odaynayay inaan isku dayo oo wadno oo isu keeno oo jiidno oo aan ilaa xad halkaa gaarsiino waxay gaadhay markii ugu dambeysay inaan aniga iyo saaxiibaday ku heshiin weyno war shirkan
دستور كان هذه اللي جوا شقينا يانا عن كوا شقينا شالوا سؤال لا وين مقنعيده وهذا هذا إلا لا جلاه برنامج كان بالحل سوء لو جاره حيالا كان لين بعيد وانت الآن واكي ونجاب حيني وحنا هذا سوء ده إنان السكان صوالي دي بسوء هذا لو هذا الله دستور كان يدور شذا يوحنا كهلنا كل أي نقطة وحلو ده هايو بالصوالي واي صوالي لأن النقف كله وما قاعد كره وحين اللي يسقن عياء أصله وحيكون صور رصتي لو ما تشوتشينيو والله يسوع عنايا سيدنا يلينا كان سوينا تاسي marka waad garan kartaan macnaha ay dhali karta iyo meesha ay gaari kartay waxa uu noqon karay aad baan talooyin badan uga jeediyay hadal badan baan ka geystay wax badan baan sameeyay waxa la yiri uma istaagayno innagan inteenan hadaynu ku heshiin cid kale waxba inagama gelin sidaan ku joogaynaa sidaan maamul ku nahay sidaan ku dhisanaynaa maxaa inaga maqan oo yahay maxaan shalay ku dagaalamayna waxaan aad u waxyaalaha qariibka ah waxa kamid ah waxayna xasiiq waxaan aad uga talin lahaa bal inuu shalay iyo maanta is dhageysto ani hadaladayda halaysu wada keenay shalay iyo maanta iyo kulli waxaan ku hadlayaa waxaan aqaan laakiin madaxweyne xasan hadduu shalay is dhageysan lahaa markaan soo bax ninka odayga saaxiibkay lahayn iyo maanta inuu is dhageysaa ficnaan lahayd falka dhacay iyo qaabka wuxuu jiraan iyo sayid reer Jubbaland waa la isu yimid waa la wada fadhiistay waxaa ka horeysay 2 sano waxaan sugaynay waxaan ka digay arintii dagaalka shabaabka horaan uga hadlay mar raba inaan hadda waqti ku lumiyo ama awsley ha noqoto ama aagin laga soo bilaabo ha noqoto labadaba horaan uga hadlay waxaan ka hadlay war waxaan isku ognahay oo dadkii Soomaaliyeed ka dhaxeeya aan ka shaqeyno oo isla nimaadno waxay ku soo ururtay maanta meesha ay taagan tahay golaha baarlamaanka Jubbaland baa fadhiistay teeranka 4 sano ahaa waxay ka dhigeen waliba anigu oo joogin oo talo ku lahayn baa waxa laga dhigay taamka in 5 sano laga dhigo intii sharci darro iyo extension dawladda dhexe xaq ay u leedahay xagee u jira inay tiraahdo waan iska joogaynaa iyo madaxweyne walba doorasho state-kan u baahaniyo 2 sano waa tamhiid loo sameeyo ka federaalkan in la yiraahdo iska oo shalay farmaajo soo baxaan u lahayd hadii la iska joogayo iska joogayno leena sida la yiraahdo taamkii 5 sano markuu dhamaaday ballamihii la ballamay oo dhan waxba ka socon weeyay waxay noqotay inaan nidhaahdo doorasho la iyo maya maxaan uga baahanahay doorasho waa soconayna la joojin maayo aan socon taasay ahayd markaa midda aan uga soo tagay aan ka soo tagnay ma lagu daynina doorashada laftirkeedii baa la intii team la abaabulay iyadoo dadka u furan tahay kaalay oo doorasho kala qabanaynayo hebel ha lagu dhawaaqo sideen ha leeyna waa qariib oo waa diidan tahay doorasho haddana qoladan kale abaabulaysa lacagta siinaysa maxaad uga wadaa macnaheedu waa inaad dadka waxna farto adiguna wax kale ka shaqeysay waa caqabad kale oo sideeda u taal waxay noqotay mushkilad kale oo dawladda iyadu gacanteeda ay ku sameynayso ma ayna ku daynina haddana been baa la isu sheegay intii fiyoorihii la gaday fiyooraha soo lama aqoon carwadii yaa la diyaaradaha lagu daabulo kaambooni intaan tagno niman geesiyaal ah waxay dhahaan intaan tagnaan soo qabanaynaayo waxaynayna 1500 oo wiil oo Soomaaliya damage ka dhacay iyo gacmaha la taagay iyo cawrada nooga badneed maxay in ciidan Soomaaliyeed waliba daroono intii meelii ugu istiraatiijiyay ka baxeen ciidankii aanu daray daroono loo isticmaalo wadaroonta shabaabka loo leeyahay maanta ay balcad korkeeda la taagan tahay ma aan la duqeynin kaamboon lagu soo duqeynay ciidan manaraani jooga macnaheedu waa masiibada arkaysaan ee shalay dhacday ciidankii Soomaaliyeed maalinta wixii ka dambeeyay aan isleeyahay waxa hadda dhibaatada badan uga dhacayay waa maamul xumada iyo talo xumada meesha ka taalay iyo waxaan oo project laga wada raadinayo ciidanimada laftirkeeda maanta burburkaasi iyo khasaarahaas ciidanka ku yimid iyo ceebta ku timid waa waxa arkaysaan saa u dhacay waxa hadda laga hadlayaa shacab la cuna qabateeyay
garoomaa la xidhayaa waxaa la leeyahay haddana reegada stiil ma dhammaanin shalay kaaboni tii waa lagu fashilmay waa in bal shifti kale aan samayno gada isku dayno inaan waxba ka samayn karo reebaar dheer aan isku dirno reegarbaarey aan isku dirayna doolow aan sidan yeelno balaxa waa la iskor fadhiyo laakiin waxaa ilaahay mahadiya dadku aad bay caqligooda u soo jeedaan odayga la hadashaay iyo qof waliba wuxuu leeyahay kaalay ma inaan waalanahay bay moodayaan waliba dadka reegeedo dad aqbalaya ma aha waxyaalo badan oo hadda hadduu madaxweyne xasan sheekh hadda hub iyo gaadiid geynayo shalay kuwii shabaabka lagula dagaalamo loo qaaday ee ABCyada diyaarad baa lagu soo qaaday beeca kharashkay lagu qaaday imisuu ku cayaad u malaynaysaa maanta wax gaadiid oo ciidanka SNAD meesha jooga hadda daawo jooga ay haystaan ma jiro waa hubkii iyo gaadiidkii Jubbaland lahaa daraawiishtada yaa hub iyo gaadiid waa wixii kale dawladdu ay keentay SNAD waa la qaaday diyaaradaha lagu qaaday dib baa loo celiyay waxa kale la keenayo weli waxaa la wadaa muxaawalooyin in dadka dhexdoodii dhibaato laga abuuro war state-kani nasiib darrada shalayna madaxweyne xasan sheekh uu ku bilaabay 2013 maantana uu rabo inuu ku aakhiro si uu ku khatinto soo ma garanayo wixii shalaynaya waa nasiib darro maanta xaaladda Soomaaliya aan ku jirro hal heshiis in 12 wadan lala galo oo wax siyaasaddu ay maanta oo haddana dawladihii kulli ay isu sheegayaan halka ay marayso waxaa intaasoo dhan ka sii daran saaxiibadayda meesha ku haray waxay xusuusinayaan 1976 xisbiga hantida kacaanka Soomaaliya dawladdii kacaanka ee dawlad xoog leh oo xisbiga markii la aasay golihii sare kacaanka uu jiro yaa waxaa galay madaxweynihii iyo ku-xigeenadii iyo taliyaashii ciidanka iyo wasiiradii iyo saraakiishii kulli golihii dhexe xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed baa la galay waa awood dawladeed oo waddanka gacanta ku haysa oo powerful bal xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed maanta la dhisay xagee gacanta ku haya ya xisbiga maanta gudoomiyihiisii iyo musharaxiisii la isku wada haysto ee la leeyahay ma adaa joogi anaa joogi loo joojin maayo la qaybsanayo la waxaynayo ay xisbi dawladnimada maanta xisbiga loo sameysanayo la leeyahay xisbigaas aan isugu nimaadno hadda durbaanka la tuur fiiri 60s lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii markii uu kacaanadu dhici jireen Afrika waa laga soo gudbay hadda wiilasha hadda joogi iyo kulli wasiiradii kulli waa qurbo joog waa niman Yurub iyo Mareykan iyo ka yimid xataa lama socdaan xataa shuuciyadii iyo wixii jiri jiray lama socdaan ma garanayaan xataa luqadda lagu hadlayo maanta xisbiga hantida kacaanka Soomaaliyeed loo aasaasayo xisbi lamid ah waxba oo la hawla lahu wala quwwa wax gacanta ku haya ayna jirin soo ma garanayaan shacabku waxa yaala iyo sida tahay xaaladda ay ku jiraan sida waxaan ku baaqayaa madaxweyne xasan oo anaf barnaamijkan dhulka iska dhig wixii soconaya dadka loo sheega Soomaali kugusan wax dhaamaa ma jiro cid ka adkaad Soomaali ma jirta war qabiil ka adkaad wali ma maqasheen ya inta hadda Soomaali dagaal sukay ay ku jirta cid ka adkaatay baabi'isay oo la waayay marka taa ma jirta intii miis wada hadal la isugu yimaado wax NCC la yiraahdaana ma jiro oo inta ka maqana waa la ogyahay Soomaali hay isu timaado ha tashato dhulka ha la dhigo shirweyne Soomaaliyeed ha la isugu yimaado waxay u baahan tahay gacanta in laga qabto ama beesha caalamka ha noqoto ama dadka intellectualka Soomaalida ha noqoto ama siyaasiyiinta ha noqdeen iyadoo aan gacan ka hadal iyo dhibaato kala midna la abuurin gobol Soomaaliyeed baan ku baaqaynaa in la isugu yimaado Soomaali ay tashato waxay ku midaysan tahay ay isugu timaado talada dhulka la dhigo qofna kor uma haysan karo madaxweyne xasan sheekh mar labaad baan talada ugu celinayaa fadlan isdhegayso adigu intaasaa kugu filan adigu isdhegayso inta maanta dhan warkaaga la celinay adigu isdhegayso one day shir Soomaaliyeedna aan isugu nimaadno Jubbaland haddii la yidhaha gobol diyaar bay naga tahay waan dhigaynaa haddii loo baahdo laakiin gobashaasaan ku baaqaynaa Puntland baa ku baaqday inay gobol la isugu yimaado odayaasha siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliyeed baa kulligood go'aankaas qaba wada hadal baan diyaar u nahay in Soomaali isu timaadaan diyaar u nahay
inaan qof la hadalama miis Soomaaliya ku imaanaysaan rabnaa inaan isugu nimaadno lagu wada hadlo